Haa, nolosha ayaa i bartay. Noloshu waxay i bartay wax kasta oo aan u baahanahay. Sidoo kale waxay i bartay wax kasta oo aanan u baahnayn. Sidoo kale noloshu waxay i bartay wax kasta oo aan jeclahay. Sidoo kale waxay i bartay wax kasta oo necbahay. Noloshu waxay i bartay sida loo guuleysto. Waxay sidoo kale i bartay sida loo guuldareysto. Sidoo kale noloshu waxay i bartay sida horumar loo sameeyo. Sidoo kale noloshu waxay i bartay sida dib la iskoogu dhigo. Haa, nolosha ayaa i bartay sababta oo ah wax kasta oo aad dunidan ku soo mara oo wax u waayuhu ku baday oo mid inaga mid ah oo leh waxaan isku sababay wax kasta ma jiro, balse caqabadaha nolosha ka hor imaada waa kuwa ay noloshu ku bartay, taasoo Alle subxaanahu wa tacaala kugu imtixaanayo, waxaana loo baahan yahay inaad ka tallaabsatid. Caqabaduna ma aha wax kasta oo horumarka iyo waxaad u baahan tahay ka hor istaaga, balse horumarku isaguba waa caqabad oo waxa lagugu eegayaa sida aad ugu mahadnaqdid. Haddii caqabado adag ka hor imaadaana waxaa lagugu eegayaa sidaad ugu samri lahayd. Haa, waan fahmay imanka inaad ogaatay inay noloshu wax kasta ku barayso. Intee ayaad noloshan intaad ku sugnayd filim ama riwaayad daawatay taas oo wax laga jilayo? Haddaba aniga ayaa ku siinaya mid taasi kaaga habboon ee fadlan dhagahaaga ii yara fur. Haddaba haddii aad dhagahaaga ii furtay, waxaan ku leeyahay dunidu waxay ka dhigan tahay filimkii, dadkuna waxay ka dhigan yihiin jilayaashii. Qof kasta oo ka mid ah jilayaasha filimka wax ayuu ku jilayaa ama boos ayuu ka qaadanayaa filimka, mana jiro mid qaadanaya booska qofka kale. Duniduna waa sidaas oo kale oo Alle midba meel ayuu ku wanaajiyay. Haddaba adigu ha noqonin mid garan waaye meeshii loogu talagalay. Waxaan rajaynayaa inuu muuqaalkani wax kasta ku baray. Inta aynu ku kulmi doonno muuqaal la mid ah. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.